Rayma, horta ma u fasaxanahay inaan ku weydiiyo su'aal kasto mase kula kaftami karaa inta uu waraysiga socdo. waad u fasaxan tahay waadna ila kaftami kartaa balse markii aad aragto in indhahayga iftiin buluug ah ay ka soo baxayso su'aalaha iga jooji waayo waa astaanta aad ku garan doontid in aad dhibsanayo waxaad i weydiinayso haddii marka aan xanaaqo aad acuudi bilaysato dib dambe isuma arki doono. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن وناسان داود يلي دلهانتي مال والبوات جوبتان كنا سودوادا ورئيسي قبل دي جينيغا هايد ريما قيبتي سكوات. ريما هو قبر جينيا أو صوماليات كنا نول حيث اللي ضو إدقمد عبد العزيز قبل كبنادر شاكدا امتحانها وحا قريء وخلينك أوقاتي وري أبوك الشيخ أحمد البدري أو وريه Soomaaliyeed isla markaana qora buugaag badan oo dadka wax badan ay ka faa'iideen oo uu ka mid yahay buugan wehelka lamaanaha. Rayma waxa ay ka tirsan tahay deegaanayaasha magaalada Muqdisho ee Jiniga ah gaar ahaan kuwa xaafada Liido ee degmada Cabdicasiis. Waraysigan oo aan kaga hadalnay guud ahaan nolosha Jiniga gaar ahaan Rayma nolosheeda qabiilkeeda shaceelkeeda xiriirka Jiniga iyo insiga ka dhaxeeya halisaha ay la kulmaan xilliyada qaraxyada iyo nolosha hoose ee dhanka raaxada Jiniga ah ayaa waxaan idinkugu soo gudbin doonaa si taxana ah. Rayma marka hore ku soo dhawow waraysigan marka xigta waxaan kaaga mahadcelinayaa in aad fursad ii siisay in aan ku arko aniga oo aan ka cabsanayn iyo in aad ii ogolaatay in aan kula yeesho waraysi isla markaana u bandhigo dadka Soomaaliyeed. waa mahadsan tahay waan dhawahay adigana waxaan kaaga mahadcelinayaa in aad aqbashay inaan is aragno inkastoo markii aan Facebook iskala hadlaynay aad aamini weysay waxaa sharaf ii ah in aad i weydiiso su'aalo adiga oo ah wariye Soomaaliyeed oo Jini insiba ay u arkaan qof wanaagsan. Rayma, horta ma u fasaxanahay inaan ku weydiiyo su'aal kasto mase kula kaftami karaa inta uu waraysiga socdo. waad u fasaxan tahay waadna ila kaftami kartaa balse markii aad aragto in indhahayga iftiin buluug ah ay ka soo baxayso su'aalaha iga jooji waayo waa astaanta aad ku garan doontid in aad dhibsanayo waxaad i weydiinayso haddii marka aan xanaaqo aad acuudi bilaysato dib dambe isuma arki doono. hage waad ku mahadsan tahay inaad digniintaas i siisay aan toos u guda galno bal waxaad ii sheegtaa magacaaga oo buuxa da'daada qoyska aad ka dhalatay tiradooda iyo shaqada aad qabato. magacaygu waa Rayma bintu Haguuf Al-Silad waxaan jiraa 175 sano waxaan qaan gaaray 5 sano ka hor wali ma guursan balse 30 sano la soo dhaafay waxaan ahaa dhibana jacayl. haddii aan ku galo qoyskayga aabahay waxa uu dhalay 3,000 oo carruur ah 2,100 ka mid ah isku hooyo iyo aabe ayaan nahay 900 kalena waa bahgooni anigu waxa ila mataana ahayd 69 kale waayo halkii mar hooyada jinka ah waxa ay dhashaa 70 anug hooyadii waxay dhashay 30 daood oo min 70 anug ah kuwaas oo tiro ahaan noqonaya 2,100 anug 200 oo ka mid ah waxay ku dhinteen dagaalada gaar ahaan qaraxyada al-shabaab 1,900 wali waa ay nool yihiin. wow tiro badan waayo 3,000 oo carruur ah ee uu aabaha u dhalay hooyadana 2,100 waa in ku filan aabaha kaliya ayay carruurtiisa qabiilo tahay horta Jiniga Soomaaliyeed qabiilo ma leeyahay sida dadka Soomaaliyeed oo kale mise dhammaantiin waxaad tihiin hal qabiil oo Jini. waa mahadsan tahay Jiniga guud ahaan waa laba ummadood oo waaweyn oo la kala dhaho ilmo jin iyo bah ibliis kadib waxa ay u sii kala baxaan 10 qabiil 10 qabiil ee Jiniga iyo ibliiska waxaa la kala dhahaa Qulu, Hina, Ifriit, Jaan, Nasnas, Marid, Balis, Shiqi, Shaydaan iyo Silad. faraca ibliis waxaa ku abtirsada Shaydaan, Marid, Shiqi iyo Qulu. faraca Jinina waxaa sidoo kale iyagana ku abtirsada inta kale sida Hina, Jaan, Ifriit, Nasnas, Balis iyo Silad. aniga ahaan waxaan ka dhashay qabiilka Silad oo ah qabiil Jiniga ka mid ah ee ugu dhow dhanka insiga muuqaal ahaan iyo dhaqan ahaan waana qabiilka kaliya ee insiga ay guursan karaan haddii ay timaado inay is calfadaan. waan gartay Rayma adiga weligaa ma ka fikirtay inaad xiriir jacayl la samayso qof insi ah.
nabtii kama sheekayn karo xanuunka iga soo maray jaceylka aan u qaaday nin Soomaali ah oo degan Muqdisho gaar ahaan xaafad u dhow xeebta Geelaq jawaabtan gadaal ayaan iga weydiin doontaa balse waxaan ku sheegayaa jaceyl aan u qabay darteed xitaa waan isku dayay inaan xilliga uu xaaskiisa la joogo aan inta maskaxda ka mashquuliyo kadibna iyada jirkeeda ugu dul seexdo si uu iyada bedelkeeda aniga ila raaxaysto mushkiladdu waxa ay noqotay mar walba iyada ama isaga mid baa cuudi bilaysta aniga indho madoobaad baa markaas igu dhaca mar walba oo ay sidaas sameeyaan marar badan ayaan damaaciyay inaan isaga xoodaamaysto markay iyaga raaxadooda dhameystaan si aan taataabsigaasi nolol uga dhigto balse markii aan is iraahdo hadda ayay ku gashay umbu alxamdulillah iska soo jaraa kadibna waxaa la iga xarimaa in aan korkiisa taabto sheekadan jaceylkaagi iyo waayihii qosolka xanuunka naxdinta iyo silica lahaa ee aad soo martay waxaan u dhigan doonaa qaybta dambe ee waraysiga ee horta waxaad iiga warantaa Soomaaliya imise qabiil oo jinni ah ayaa degan jinka Soomaaliya degan waa badan yahay tiro ahaan kamana yaraa dadka Shiinaha balse Soomaaliya waxaa ku badan jinniga noociisa ugu dabeecadda iyo dhaqanka xun kuwa ugu nolosha xun iyo kuwa ugu saqajaansan waxaana sabab u ah xeebtan dheer ee dalka ku taala waayo jinniga xeebta ayuu degaa iyo meel qashin qub ah Soomaaliyana xeeb aad u dheer ayay leedahay walibana waa qashin qub meel waliba dadka Soomaalida ah way isdagaaleen dawladdiina way iska burburiyeen 27 sano ayaan maamul la'aan nahay idinka haddii aad tihiin jinka Soomaaliyeed ma sida dadka oo kale ayaa dawlad la'aan tihiin mise idinka maamul ay leedihiin maamul ayaa inoo dhisan dalkana annaga ayaa cadawga ka difaacna mooyee mar hore ayaa la qaadan lahaa jinkii dunida oo dhan baa Soomaaliya soo weeraray xeebtii buu isugu yimid meeshii aad lugta saartaba cunug jin ayaad ku istaagaysaa maalmaha jimcaha liida kumanaan caruur jinni ah ayaa ku dhamaada markii ay jinka aad u xanaaqaan ayay dhalinyarada insiga ah hadba midkood badda ku jiitaan oo dilaan balse sida jinka loogu dhameeyo liida insiga uguma dhintaan tan kale jinnigii dalalka dariska u dhashay ayaa sidoo kale dalka ku soo duulay waana ka adkaanay oo waan iska difaacnay waayo iyaga way naga tiro yar yihiin jinniga Soomaaliyeed ayaa ka badan marka la isku daro kan Itoobiya iyo kan Kenya hadii dadka Soomaaliyeed asaagood dadka ah isaga celin lahaayeen sida aan isaga celino annaga asaagan jinka ah dalkan wuxuu noqon lahaa mid ka qurxoon kana qanisan dalalka Qushqa iyo Qiisqaan laakiin Rayma weligii ma maqal dalalka aad sheegayso ee Shushqa iyo Qiisqaan maxaad la jeedaa إيران لنقول قشقاء إنك واحد وتقانان سويسرلاند قسقام تلك اللي يراهدنا واحد وتقانان قدر بس أنك قدر واحد ونقانا قعنك قسقام سويسرلاند واحد ونقانا قشقاء ويو توجد هو وين جني أدونك أيا دجن قشقاء معناه ذو بقرطوية دي توجده وأنا هالكي جني كوي سكيبري أي دوني كما ملان وانقتي هذا كهر واحد إيش يكتئ إن صدق سنضوط أجعلت إن سوماليا أو صدق حصلة ما أنت واحد إيش يكتئ إن أتشان سنة كهو وخانقاتي أو أبقول تضباطن إيشان سنة جيستي بشي كذا يدومر ninkaas wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan waana nin jiniga dadka ka daweeya waana nin cibaado badan balse iimaankiisu inuu sax yahay aniga ma hubo waayo waxay dadku dhahayeen waa kitaab gablo ninkaasi waxaan arkay isagoo wiil insi ah ka saaraya gabar jini ah oo kamid ah nooca jiniga ee jaanka loo yaqaano wiilka waalna ee uu jaanka ka saaraya waxa ku jirtay gabar jini ah oo u dhalatay qabiilka jaan magaceedana waxaa la yiraahdaa Zaytu si xun ayuu ninkaasi u dhibaateeyay gabadhii Zaytu markii uu ka saarayay ninkii ay ku darsoontay iyadoo afjini ku oynaysa ayaan maqlay markii aan ku soo leexday waxba uma qaban karin waayo waxa shidnaa luubaan xaar dameer iyo waxyaabo kale oo aanan u adkeysan karin Zaytu jacayl dartiis ayay wiilka ugu darsoontay balse markii xooga lagaga saaray way isdishay laakiin Rayma jiniga ما إسكو أف أيوكو هلا مسوا كلا أف وما تنتهي جنّي جوا إسكو أف بس نوعية به إبليس كو أبتر سبا أيا وحي قناة لوقت والبا ودوني ذا كجرتو نيت جنّي نيت إنسبا وايو إيجا شقدو ذدن أيا أهين يدتك إيا جنّي جبا وسواسيان دين تكويعيان سيدا درتي تقف والبا لوقديس أيا كل هدلان قلبي أيا نكلا هدلان جنّي جب دتك مدلا إساقا مسه إساقا بالبلا
jinniga midba si ayuu dadka u dhibaateeyaa. Tusaale, jinniga quulu waa mid awood u leh inuu wax walba isu soo ekeysiiyo. Dadka wuu dilaa, dhiigga ayuu ka cabaa, hilibka dadkana wuu cunaa. Qabuuraha ayuu u badan yahay. Jinniga hina waa jinni inta badan isu soo ekeysiiya xayawaanada laga baqo sida eeyaha, waraabaha iyo dawacada, balse dadka ma dilo oo sida quulu uma halis badna. Ifriit waa mid xoog badan oo wax walba burburin kara, balse Soomaaliya kuma badna. Jaan ayaa aad ugu badan Soomaaliya. Jufadiisa ugu laandheersan waxaa la dhahaa afku dable, baadiyaha ayuu ku badan yahay. Wuxuu mararka qaar isu ekeysiiyaa waxa loo yaqaano daluuliya oo ah dabayl uu jaanka kiciyo. Inta kale shaydaan ayaa ugu dhib badan, waa kan dadka ka hor istaaga inay danahooda qabsadaan. Wuxuu dadka ku dhex abuuraa fidno, wuxuu qofka ku raraa waxyaabo culays badan si qofka uu caajis mar walba u ahaado. Waana midka dadka ku rida zinada, dilka, xatooyada, shirkiga iyo dhammaan dambiyada kabaa'irta leh. adiga weligaa qof insi ma dhibaataysay mise ma ku darsantay? may aniga insiga waan jecelahay haddii inta aan insi caadi ah noqdo ninka guursado misana dhalashadayda jinninimo haysan karo waan jeclaan lahaa, waayo raaxada insiga ayaa ka wanaagsan tan jinniga. sidaa darteed gabdhaha jinniga ah waxay jecel yihiin ragga insiga ah, waana sababta ay ugu darsamaan